mudane wasiir iyo madaxda kale wasaaradaba halkan maanta waxaa inoo joogaa 40 iskuul 40kan iskuul waxa weeyaan iskuuladii hore u jiray oo min gobolada oo dhan marka laga reebo Gabiley oo iyada aynu xaflad gaar ah ugu qaban doono halkeeda insha Allah taala Britole waxaa kamid ah dugsiyo waaweyn oo Hargeysa ku yaala iyo kuwa soo korayay intaba waxay isugu jiraan KG ilaa secondary schools waxa aanay processkii soo dhamaystirteen ay ruqsadda ku cusboonaysiinayeen waxay aqbaleen inay soo ajiibaan awaamirtii iyo shuruudii cusbeed ee wasaaradda waxbarashada waajibinaysay in sanad dugsi walba uu liisankiisa cusboonaysiisto iskuuladana waxay isugu jiraan qaar khayriya oo aan cashuur lagu lahaynin oo ummaddu ay leedahay oo ku diiwaan gashan inay community schools yihiin bulshadu ay leedahay gacan ku haynteeda hadda si ay hay'ado madax bannaan ay gacanta ku hayaan dadaal badanna ay runtii geliyeen iyo iskuulo shakhsiyaad gaar ah ay aasaasteen hantidoodii iyo waqtigoodii iyo aqoontoodii iyo waaragnimadoodiiba ay geliyeen si ay ubadka Soomaaliland hanaqaadkiisa iyo horumarintiisa ay qayb laxaad looga qaataan dugsiyada maanta halkan aynu ku guddoonsiin doono waxa maanta iyo sidii awalba sharcigu dhigayay oo xafidmaya magacooda astaantooda iyo sawirka ay bulshada ay ku dhexleeyihiin oo aanay wasaaraddu magaca iyo iskuulka iyo intaaba ay idin xifdiyi doonto sidii sharcigu ahaana la idin diiwaan gelin doono maadaama markii hore documentsku ay kala dhinaayeen laakiin maanta way dhameystiran yihiin iskuuladaasi sidoo kale waxa weeye sidii wareegtadii xafiiska wasiirka ka soo baxday ay sheegaysay waxa ay xaq u yeesheen oo eligible ay u noqdeen inay imtixaanka shahaadiga ay fadhiistaan ee ay dawladdu qaadayso waxa kale oo jecel runtii fariimo muhiim ah halkan aan ka sheegno oo ah inaan ku celino wasaaradda go'aanka ka soo baxay ee ah dugsi aan ruqsad qaadan inaanu imtixaanka shahaadiga aanu sanadkan fadhiisan doonin gobol walba waxaan soo saari doonaa liiska dugsiyada officialka ah ee wasaaradda waxbarashada ruqsadda cusboonaysiistay ee sharciga sida sifada sharciga u jira liiska marka aanu soo saarnana intaas ayaa imtixaanka u fadhiisanaysa runtii waa barnaamij iyo xaflad qiimo badan kolley anigu waxaan ahay gudoomiyaha qaybta waxbarashada ee dugsiyada Alhuda saaka kulli ruqsadda qaadanaya kulli 15 iskuul baa halkan aan hoggaan u ahay oo aan wado gobolada kale dugsiyadii iyaguna ka dhisnaa ee dalada hoos tagayay laftoodana kulli iyagana processki bay ku jiraan insha Allah waan dhameystirnaa kulli waxaan leeyahay hunde wada shaqeyn ee wanaagsan dhammaan dugsiyada gaarka ah iyo dugsiyada dawligaaba ee dhamaanteena waxaynu u hogaansanahay oo aynu waxa way ka tilmaan qaadanayna wasaaradda waxbarashada waana mahad celinaya runtii waana mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaah farxad weyn bay noo tahay in saaka aynu halkan u wada fadhino dugsiyadii gaarka ahaa iyo wasaaradda waxbarashada annagoo runtii baaqi iyo wareegtooyinkii iyo waajibaadkii wasaaraddu ay soo saartay aqbalnay oo fulinayna aad iyo aad baanu runtii ugu faraxsannahay inaanu sii qurxino oo madaxdeeda annagoo kaashanayna oo hormood noogu tahay inaanu sii qurxino oo sii tayayno oo sii wanaajino wixii hore u jiray ayuu mabda'eenu yahay iyo halka aynu higsanayna marka runtii waanu ku faraxsannahay insha Allahu waxaan rajaynayaa inay arintani aynu maanta halkan u fadhinaa horseed inoogu noqon doonto halka aynu higsanayna ee waxbarashadeena waddankeena inaan kor u qaadno inaynu gaadhno ayaan rajaynaynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii dugsiyada gaarka loo leeyahay waa tartan baa ka dhaxeeya iyaga iyo public iyo private laakiin wax cadaawada oo ka dhaxaysa ma jirto wasaaraduna inta badan siriga waliba dhexdhexaadnimo ayay wasaaraddu u haynaysaa hadii la haydmo dugsiyada private-kana dad badan oo qiimo badan iskuulo badan oo
macallin maamulayaal badan oo runtii role model oo ah bulshadeenna ayaa ku jira oo cabdilaahi muuse qaalibba uu nool yahay oo shakhsiyaddiisa diintiisa akhlaaqdiisa macallinnimadiisa punctualitygiisa role model oo ah bulshadeenna u ah oo weliba intaa cabdilaahi muuse qaalib tusaale ahaan uu ka geystay dugsiyada ka geystay ma filayo macallin ka geystay oo somaliland jooga inuu jiro marka dadka noocaasa dugsiyada brefatka laftigooda ku jira runtii in ay noqdaan dugsiyada brefatka dad qaar sidaa loogu majeerto waxay u tahay qarankay muhiim u tahay bulshadeennay muhiim u tahay wasaaradduna waa wasaaraddeennii individualist ama shakhsiyaadna in la eego runtii inta badan ma habboona laakiin sharcigu waa sharci qaynuunku waa qaynuun bulshaduu dhex u yahay waxa weeye inaynu shuruucda dalkeenna ixtiraamna runtii muhiim bay noo tahay waxa kaloo inoo muhiima tayada quality-ga waa bal quality-gaasuun public iyo private ba aynu ku dadaalno waxaan maanta halkan shahaadooyin ku guddoonsiinaa marka ama ruqsadihii lagu guddoonsiinayaa sanadlaha loo cusboonaysiinayay 40 dugsi oo gaar ah loo leeyahay taas waxay muujinaysaa markaa wada shaqaynta xooggan ee sii koraysay sii adkaanaysa ee wasaaradda iyo markaa dugsiyada gaarka ah markaa ka dhaxaysa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa markaa waaxda dugsiyada gaarka amiin iyo guddida wada shaqaynayeen ba shaqada fiican ee runtii qabteen dugsiyada gaarka ah waxay qayb ka yihiin dugsiyada kale dawladda ee wasaaraddu maamusho ba qayb ka yihiin kaliya waxa qoray ku kala duwan waxa weeyaan midna maamulkiisa waxa gacanta toos uga haya markaa wasaaradda waxbarashada midna maamulkiisa waxa gacanta ku haya markaa dad gaara markaa oo iyaguna muwaadiniina laakiin hadday tahay shaqada ka socotay dugsiga hadday tahay manhajka la qaadanayo hadday tahay qaabka waxbarashadu u dhacayso iyo goobta wax lagu baranayo dhammaan waa isku mid weyn dugsiyada iyo goobaha waxbarashada dhammaan intaasuba markaa wasaaradduna markaa ay hoggaanka ugu haysaa sideedana marka dee dadku wada shaqaynayaan waa in shuruuc iyo nidaamni jiraan haddii kale qofka suu doonu isagu dee u jeclaysanaya inay wada shaqeeyaan taasaa markaa kaliftay wasaaraddu inay nidaamiye iyo xeerar iyo iyadoo la waafajinayo markaa dastuurka oo wasiirku soo saaro arrinkaas markaa si qurux badan oo wanaagsan bay noogu socdaa waxaan idinka mahadnaqayaa markaa idinkuna inaad taa la garateen wasaaradda qaabka ay wado wasaaraddu waxay diyaar u tahay markaa dugsiyada gaarka ah inay kobciso oo ay markaa soo gaarsiiso heerkii halbeegga laga doonayay tayada waxbarashada macallinka wuxuu dhigayaa inuu yahay macallin xirfadii lagu talagalay leh ma doonno qof kasta inuu macallin noqdo laakiin qofkii xirfadii aqoonta lahaa ayaan doonayaan macallin noqdo macallimiintii la jooga haddaanay lahayn waa la tababarayaa micnaheedu maaha waa la eriyaa ma waa la tababarayaa kulliyadii tababarka qarankan leenahay inaad soo gudbisaan liiska macallimiinta dugsiyada gaarkaa jooga ee aan tababarka lahayn baa la doonaya soo gudbisaan dugsiyada gaarka iyo dugsiyada dawladdu wax cadaawada ka dhexeeya ma jiraan laakiin tartan baa ka dhexeeya sida dugsiyada gaarka dhexdoodana tartan uga dhexeeyo tartankaas annagu waxaan jecel lahayn markaa lasii xoojiyo lena oo dardar la geliyo haddaad naga maqasho annagoo idaacadaha kale dugsiyada dawladda ka wanaagsan kuwa gaarka loo leeyahy idinkuna waxaa la doonaya tirahdaan waa kuwa gaarka ka wanaagsan kuwa dawladda oo deetana muujisaan iyo balas markaa lagu tartamaan doonina oo ardayda reer somaliland markaa ay la tartamaan ardayda kale caalamka intaa wey ujeedadu tacliintu maalinba meel bay maraysa annagu berigaanu ardayda ahayn barayfadba mu jirin kolkaa laakiin imika tacliintu way badatay barayfadkii iyo babligii barayfadkii baa badan kolkaa ha bato laakiin waxaanu leenahay meel aynu ka wada jaan qaadno oo haynu wada socon wax kaloo cid ma jirto barayfadku waa kaayagii caruurtaydaa dhigata caruurtiinaa dhigata kuwii babliga waa kadaalig kolkaa waxaynu wada socon tacliintana kor haynu qaadno ardaydan saaba u dana kolkaa dinteenna haynu wada raacno marka ugu horeysa waanu idin soo dhaweynaynaa aada iyo aad baanu idin soo dhaweynaynaa dugsiyadaasi privateka ah u soo hoggaansamay awalba waa hogaansanaydeen laakiin haddii lagu soo kordhiyey xeer nidaamiyaha oo siduu yahay dabeetana idina ku ogolaateen waxay ka dhigan tahay in ku soo dhawaateen hogaamintii wasaaradda aydaan ilaahay kuna taageeraysaan annaguna waanu taageeraynaa qofka sharciga waddanka u hoggaansami waaye dowladnimadii ma ogola bay ka dhigan tahay aada iyo aad baan idinku mahadnaqayaa inaa ogolaateen oo taageerteen xeerka waxbarashada ee waddanka ummadda ubadkeedii baynu waxbaraynaa waa lagu tartamayaa haddii wasaaradda ka badisaan alxamdulilah haddii isku mid noqotaan rabbilcaalamiin meel baynu ku wada soconnaa waxaan ku faraxsanahay in dhammaantiin
sharciga waddanka ixtiraamteen oo hoggaansanteen